وعن أو نفسنا داوديال ملك استونا قد داونيسان كسو دواده برنامج جار oo toddobaadkan si toos idin kaga imaanaya stuudiyaha telefishinka Universal oo kulli yahay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka barnaamijkan gaarka ah maanta waxa marti igu ah Bashiir Ahmed Abdullahi oo ku magac dheer Asadu Diinillahi oo kamid ah culimo diinka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda dawlad deegaanka Soomaalida kusoo dhaw barnaamijkan gaarka ah oo maanta aad marti u tahay دق ما سنة ما كله إن أقرنتي وحلا سو شيء إن علماء الدين خارج من علماء الدين كصومالية يكون حريهين إن دول ديان كصومالية هذا محاكين إن الحلو دق أديات بعض ما حسنت هاي سجود هذا أضر مرة دول ديان كعناها لبك كشرة يو محمد عقاب وكوب الوضي ديان كوحكس على البرية هذا به وحقوا إسبدل سياسيها أو لبدلها هي مدحوينه هره isla markaasna ay ku wareegayeen maxalli jiray maamul cusub oo hogaaminayo Mustafa Maxamuud Umar kadib waxa bilaabatay in loo dhaco xafiiska arrimaha islaamka oo isla markaasna ku shaqale masaajidada iyo madaarista iyo maxalli jiray arrimaha noocaas maxalli jiray waa shaqadiisu isla markaasna waxa la bilaabay ama dhacday in culimadii lagu qaado weerar ba'an duulaan aad u ballaaran in lagu qaado ayadoo markaasi la beegsan hayo goobo gooni ah oo ka mid yihiin sida gobolka Erar oo kale gobolka Jijiga caasimadda lagu hogaamiyo deegaanka lagu hogaamiyo gobolka Afdheer gobolka Wardheer gobolka maxaan jiray jarar gobolka goday deegaanadaas bay weerar ku qaadeen weerarkaas oo ay hogaaminayaan dad kolkii hore ahaa askar maxaan jiray markaas duurjoog ah oo isla markaasi aan aqoon u lahayn ama takhasus gooni ah aan u lahayn arrimaha diinta nimankaas oo adeegsanaya awoodda iyo maxaan ku dhahay baawarka dawladda adeegsanaya oo awoodii la sii qaab maxaan ku dhahay aan munaasab ahayn u adeegsaday nimankaas baa waxay keeneen maxaa la jiray dhibaatadan faraha badan marka nimankaas shaqo siyaasad diray marka nimankaasi waxa soo dirahaya ama ay ku shaqeynayaan horta asalkooda waxa weeyaan to nimanka loo oran jiray al-ittihad oo waa dhaweyto la heshiiyay maxaan ku dhahay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya la heshiiyay isla markaasina hadda ka faa'iideysanaya maadaama dawladdan hadda ay curdan tahay oo cusub tahay ba waxay ka faa'iideysanayaan maxaa la jiray in fikirkoodii ay dadkii ay ku qasbaan markii ay arkeen macnaha dadkii inaysan fikirkii aynan ku soconin mabaadi'dooda iyagana waxay bilaabeen dagaal iyo maxaa la jiray ballaaran oo ku wajahan culimadii marka arintaasi meesha maamulka ka jira dawlad baa ka jirta dawladda hadda jirtaan waxay isku dayaysaa in dadka isku soo dhaweyso oo waxyaabihii qaldanaa la sheegi jiray ee dadka ka caban jireen ay saxaan marka dawladda ma wargelisay arintaas runtii ha dawladda waan wargelinay maxaa la jiray xaqiiqatanna maxaa la jiray way la socdaaba nidaamka maxaa ku dhaca qaabka uu si u dhacayo si fiican bay maxaa ku dhaca la socdaan culimaduna dhowr jeer ba waxay isku dayeen inay la hadlaan oo ay u tagaan siiba maxaa ku dhaca hogaamiyaha ee dawlad deegaanka hasa hatee maxaan ku dhahay zamankii baa ka ciriyay oo meesha u suurtagelay inay culimadu maxaan ku dhahay ay la kulmaan maxaa la jiray hogaamiyaha meesha dhibkiina maxaa la jiray ilaa hadeertan waa sii socday culimadii si xun baa maxaan ku dhahay loo beegsanaya isla markaasina qaybo fara badanna way xiran yihiin oo maxaan ku dhahay xataa cid xidhay iyo cid haysata xataa la garan lahayn mid qof ah xiran markii deeq runtii waxaa xiran hadda culimo maxaa la jiray tiradoodu ay gaadhaysa 7 sheekh oo raggii waaweynaa ee mudarrisiinta ahaa maxaa ku dhahay diinta faafin hayay maxaa la jiray ay ka mid yihiin ba hadda xiran masaajido fara badan oo ay culimadaasi maxaa ku dhahay wax ka daraasanayeen wax ka akhrinayeen ayaguna maxaa la jiray waa meesha laga saaray oo waxaan moodaa maxaa la jiray حتى ولي إن محن كل أو بعثي أو كتير محن كل هاي إن لسي بعثني علماء أنت حتى كهذا مرك ماشى على قصة وحول جدا مساجد كان الحريم مثبت على وريج لبا قيبات بان لبا محمد سواش وجه هي مدوية هرتا ميرا قارق الله الحري سيدا قبل كوردير أكله
masaajidadii maxaan ku dhahay duruusta ka socotay oo maxaan ku dhahay kutubaha iyo diinta islaamka laga faafinayay totally waa la xidhay meelaha qaarkoodna maxaa lihi jiray waxay noqdeen maxaa lihi jiray in ay culimadii markii hore joogtay markii qaybna la xidhay qaybna maxaan ku dhahay baacas weli ay ku jiraan in maxaan ku dhahay loo dhiibo dad iyaga fikirkooda markaa matalhaya oo maxaan ku dhahay xisbigoodii ka tirsan isla markaana saan horey tilmaamayba aan diinta maxaan ku dhahay aqoon u lahayn marka haddaan deeqo mid kugu yara hadaro waxaa jira xafiis la yidhaha arrimaha islaamka oo u qaabilsan in uu maxaa lihi jiray arrimaha islaamka maxaan ku dhahay ka howlgalo oo dadka maxaan ku dhahay diinta qaybta maxaa lihi jiray masaajidada iyo madaarista iyo maxaan ku dhahay ardada maxaan ku dhahay knowledge-kooda in la koriyo ay shaqadiisu ahayd isla markaasina laga hogaamiyo federaalka xafiiskaas marka goormee la furay yaa safuray xafiiskaasi maxaa lihi jiray waxaa la furay maxaan ku dhahay intii dowladdu hadda dowladdeegaan ka talisa ay soo jirtayba way jirtaa ma aha maxaan ku dhahay xafiis cusub hadda la furay oo madaxweynahan hadda jooga iyo madaxweynihii hadda ka horreeyayba ay fureen ma aha waa system soo jiri jiray dowladdeegaanka intuu jiray bay soo jirtay isla markaasina aan hoos tagin dowladda deegaanka laakiin hoos tagta maxaa lihi jiray federaalka hoos tagta marka kolkii hore waxa ay meesha ku qabsadeen ama meesha ay kula wareegeen qaab afgambi ah oo iyadoon maxaan ku dhahay ama doorasho ama maxaa lihi jiray aysan ku imanin unbaa culimadii hore oo maxaan ku dhahay joogtay arrimaha shareecada unbaa waxaa la yidhi intii xafiisyadooda loogu yimid baa liikaa iskaga dareera meesha marka arrintii soomaalidu waxay ku mamahdaa hal booli ah nirig xalaala ma dhasho lidaa awgeed maadaama uu kolkii horeba uu kusoo aasaasmay ama uu kusoo dhismay maxaa lihi jiray qaab aan sharci ahayn waxay noqotay waxa uu dhalayna in ay noqoto inay diintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in lagula dagaalamo isla markaasina laga bilaabo maxaa lihi jiray culimadii diinta faafinaysay dowlad deegaanka culimadeedii ahayd ilaa saxaabadii ilaa waktigan maxaan ku dhahay diinta hogaaminayay in ay maxaan ku dhahay dagaal baahsan iyo bahdilaad iyo jirdil waxaa la soo sheegayaa maxaa la jira oon ka war haynaa ragga qaarkood xataa dhibtii la gaarsiiyey inay ragga qaarkood kaadida ku dhegtay ragga qaarkoodna ay miir beeleen kuwa qaarkoodna ay maxaa la jiray qoriga maxaan ku dhahay shubkiisa oo kale madaxa lagala dhacay oo maxaan ku dhahay dhaawac aad u xun uu soo gaaray isla markaasina shakhsi iyo 2 iyo 3 toona ma aha waxa weeyaan waa dagaal baahsan oo ku baahsan maxaa la jiray maxaan ku dhahay dowlad deegaanka lana ataagsan hayo wax alla wixii madhabka ahlu sunna wal jamaa ka fikir duwan qoladaas maxaan ku dhahay soo xarootay marka waxa meesha ka muuqata marka dadka aad ishaysaan waa dad qaabilsan arrimaha diinta ma ahin cabasho aad ka cabanaysaan dowlad deegaanka Soomaalida ha kow lambarka koobaad horta dhibka waxa wada waxa weeyaan to waa arrimaha maxaa la jiray xafiiska islaamka dadka hogaaminaya oo awoodii la siiyana qaab khaldan u adeegsanaya isla markaana meesha loogu talagalay meelaan ahayn xafiiska islaamka hadda marka yaa maamula waxa hogaamiya qoryaha hadda aan sheegayo oo itixaadka ah marka maad xafiis kala furataan oo maxaad xafiiskaas kaligiisa aad maanta aad farta ugu fiiqasaan deeq waa sax waa su'aal wanaagsan waxaa jirta iska badayna xafiis kala furaan culimadu waxay isku dayeen maxalaha in ay sameeyaan shirar maxaan ku dhahay kaga caban hayaan oo ay ku soo jeedin hayaan macnaha dhibka ay maxaan ku dhahay ku dhacay inay sheegaan maxaan ku dhahay shirar ay kaga cabanayaan inay soo jeediyaan xataa loo diiday inay ka cawdaan ama ay maxaan ku dhahay ka hadlaan ayagana waa loo diiday isla markaasina maxaan ku dhahay dareen waxa culimada ku jirta aha in nimankan awoodda ay isticmaalayaan inaysan awood kaligood aysan ahayna ay tahay awood ka dambaysa oo maxaan ku dhahay dowladda xaggeeda ah hadda dowladdan cusub waxay la timid nidaam ah dimuqraadiyad oo dadka inay hadli karaan mudaharaadi karaan marka masaajidada markii maadaama la xiray sidaad sheegto adigu masaajidada qaarna ay xiran yihiin marka shacabkii masaajidka ku dukan jiray iyo dadka shacabka ahaa iyo dadkii maamulayaba maxkamad ma tageen oo ma dalbadeen in masaajidda dib loo furo horta deeqow hal baa jirta markii la yidhaaho xagga maxkamadda iyo xagga maxaan ku dhahay qaabka dacwiga ee systemka hadda wadankan hadda inagu aan joogno oo kale iyo maxaa la jira markaan isbarbar dhigno hadallada mararka qaarkood maxaan ku dhahay laga yaabo in ay maxaan ku dhahay dadka meesha hogaamiyaasha ka ah inay ku dhawaaqeen
aad bay u kala fog yihiin waddankan aan joogno waxaa jira maxaa dhihi jiray in qofku uu sameeyo maxaa dhihi jiray inuu cabashooyinkiisa meel uu ku gudbiyo iyo wadooyin system